بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa galbeed TV xaruntiisii barteeda Facebooka caalamka oo dhan naga daawanaysan barteeda Facebooka ee galbeed TV. daawadayaal meel ka soo joogtaanba soo dhawaada. waa barnaamijyadeeni wacyigelinta arrimaha siyaasadda dawladnimada sinaanta iyo cadaaladda had iyo jeer kaga hadli jirnay. maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dood ama dhalinyaro ka doodaysa waa ayo xildhibaanka la rabo inuu ummad matalo waa la joojiyaa iyo la jiifiyaa midna ma banaaneen. xildhibaanka la rabo inuu ummad matalo xildhibaanka la rabo inuu ummad matalo waa kuma ayaynu ka hadli doonaa maanta. dhalinyartaas aynu mataqaanaa yar falanqayn doonaa haddii allaha wadalo yoqda. marka soo dhawaada, marka hore soo dhawaada. halkani waa galbeed TV oo naga daawanaysaan barteeda Facebooka caalamka oo dhan galbeed TV. كهلا سودا وذا خياري سودا وذا سودا. ويرانا روني ناسا وينادا تونا. دد ويرانا روني ناسا وينادا تونا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. halkani waa galbeed TV oo naga daawanaysaan caalamka oo dhan barteeda Facebooka ee galbeed TV. daawadayaal maanta waxaan ku soo qaadanaa barnaamij gaaban oo kaga hadli doono panel ay sameeyeen dhalinyaro joogta magaalada Boorama ee xarunta magaalada maxaan ku dhahay gobolka Awdal oo ka hadlaya waa kuma xildhibaanka matali kara ummad, waa kuma ninka matali kara ummad deegaan ku nool ama la doorto. waa maxaa laga rabaa, shuruudaha laga rabo, calaamadaha laga rabo, waxa laga doonayo, waxa laga filayo maxay tahay, cidda uu matalo ma garanaya. hore waxaan soo aragnay xildhibaano golo deegaan, xildhibaano baarlamaan oo matala ama hadday noqoto Soomaaliya, hadday noqoto maxaan ku raadayay Hargeysa jooga, dhammaantood waynu wada aragnay, waan isla garanay, waana la isla ogyahay dhalinyaradaasi ama dadkaasi cidda ay matalaan waa la isla yaqaanaa. ودad la isla ogyahay cid ay matalaan, wadad la isla garanayo meesha ka soo jeedaan, wadad la isla garanayo sidii loo doortay, ciddii dooratay, deegaanay ka soo jeedaan, beelay ka soo jeedaan,
waa la doortay ciida loo fadhiyey laakiin waxii laga filayay ama ummadda inay u hadlaan deegaanka ay joogaan dhulka ay joogaan cid ay matalaan ma kursiga ay ku fadhiyaan may og yihiin inay cid matalaan horta kow mise ma degaan bay matalaan mise beelay matalaan for example qofka hadduu beel matalo oo jilib matalo oo jilibkii doortay ma jilibkaanba wax u qabanaya oo hadduu shaqaalay noqoto hadday noqoto mataqaanaa resourceka waddanka hadday noqoto haddii dhaqaalo la helayo wax la qaybsanayo ma beeshiisu u fadhiyaa meeshuu wax u qaybinaya u leeyahay beeshan intana soo helay anigu waxa dad kuwa deegaanka ka hadlaya gobolka awdal degmada buura marka fadhiyaan ka hadlaya baki kuwa halfasho lukaya kuwa fadhiya saylac kuwa fadhiya ma beelay u fadhiyaan oo jilib u fadhiyaan oo ninku jilibkiisu buu la hadlayaa oo haddii jaga noqoto oo dhul laga hadlayo haddii wax kale laga hadlayo ma wuxuu shaqeynayaa un cidii doorato u shaqeynayaa mise cid kasta uu shaqeynayaa waa waxyaabaha dadku inay isweydiiyaan u baahan laakiin dhalinyartu waan salaamaya dhammaantood waa dhalinyarada wada garanaya khiyaara oo garanayo way fiican yihiin oo inay soo sharaxaan oo qofka wanaagsan in ummadda inuu soo hor fadhiisto aan waxna mar walba marka qofka wanaagsani uu aamuso kii xumaaba dee wax walba ku takrifalaya laakiin hadduu ka fiicani soo fadhiisto oo hadlo oo yiraahdo warniyow waxaynu u baahannahay isbeddel baynu u baahannahay okay isbeddelka seen ku samayn karnaa dee waa inuu qofkii fiicnaa soo baxa horta qofkii wanaagsanaa waa inuu horta ummadda soo hor fadhiisto qofkii wanaagsanaa waa inuu ummadda hor yimaado waa inuu cod ka doono waa inuu isbeddel inuu keeni karo aamino laakiin haddii qofkii wanaagsanaa uu xishoodo wada ka warma for example qofkii wanaagsanaa ee ummadda wax u qaban lahaa baa xishoonaya wuxuu ku leeyahay aniga cidna ima dooranayso mataqaanaa dadkani qabiil bay wax ku doortaan oo sidanoo meesha waa sidaas marka dee wax jiraa ma jiro marka haddii qofkii wanaagsanaa aamuso waxaan idhi qofka wanaagsanay hadduu aamuso ku xunba ummadda hor imanaya waanu saana way soo aragnay isla garanay waa isla garanay waxaan isla garanay qofka wanaagsani hadduu aamuso waxaan isla garanay qofka wanaagsani haddii uu aamuso in uu qofka xuni shaqaynayo way dhacday waynu aragnay dadkiina waynu ku aragnay tusaale weeye mataqaana wax practically aanu aragnay waxa jira in uu ninka fiican marka uu aamuso ninka xuni uu shaqaynayo oo marka waayo cid tiraahdo war waxaad ka shaqaynaysaa waa sidan waxaad ka shaqaynaysaa waa xaaraan waxaad ka shaqaynaysaa waa dembi waxaad ka shaqaynaysaa ummadnimo maaha waxaad ka shaqaynaysaa maaha wax ummadda hore u wadaya maaha markaad tiraahdo qofkii uu fadhi dib uu istaagaya wuxuu isleeyahay wallaahi waa lagu arkay marka da inay wax kale jiraan oo option kale ama alternate kale dadku ay haystaan buu arkaya laakiin haddii uu isaguna arko yidhaahdo wax canuun baa wax samaynayd waayo dee kii wanaagsanaayo wax sheegi lahaa ama xumaanta sheegi lahaaba aamusay waxaan leeyahay dhalinyarta waxaan leeyahay waad nigu hambalya horta inaad soo baxdaan oo tirahdaan niyo waxana jira mid kalena way taallaa meesha waan ogahay kartidiina waan ogahay waan rag badan oo maqaar su kalaasaan jirnay maydhane waan salaamaya iyo rag badan oo mataqaana meesha fadhiya waan raggaan iswada garanano oo mataqaana aanu isku waqti soo wada qaadanay wanaagsan dun wanaagsan wax qaban kara vision leh wax u muuqdaan wax arkaya laakiin halkay joogaan meesha ay joogaan ma tahay meeshii ay ku samayn lahaayeen wax ay doonayaan u malayn maayo inay tahay maanta right time inay tahay maanta waxa ka horeysa dhalinyartu in badan bay hadleen dhalinyarta qaar ka mid ah oo group balanka fadhida waxay ahayd dhalinyarti lahaa waniyow somaliland haddii la rabo in ay wax noqoto waxa horta ka horeysa in power sharingka iyo la hagaajiyo oo cadaaladda la hagaajiyo cadaaladda in la hagaajiyo ayaa horta wax walba ka horeysa haddii meel aan cadaaladi ka jirin oo systemkuba u dhisaysan yahay noocaasi dee waxba lagama bedeli karo wax laga bedeli karaa ma jirto marka waxaan leeyahay horta aniga waxa ka horeysa horta dadka in la wacyi gasho wacyigelin bay dheerta wadeen tabliiq bay wadeen aqoonyahan badan waday professor cali khaliif kale alla naxariisto professor samatar rag badan baa tabliiqa siyaasadda waday yacni meesha dhalinyaradu waxa weeyaan waa jiinka dalka iyo ama waqtiga deegaanka cidda dhaqaajin karta wax bedeli karta waa iyaga wey within seconds wax ku bedeli karaan hadday rabaan inay bedelaan laakiin dhalinyartu weli wacigooda siyaasadeed wacigoodu mataqaanaa isma soo wada gaarin dad wacigoodu isgaaray maaha
dad qabiilka ka korayna maaha weli beelay dadku ku salaysan yihiin waa arrintaas taala base u ahay waxa weey dadka weli waa beelo haddii hal qof mukhtaar iyo haddii mataqaana iyo ruush iyo maxaan ku dhahay iyo ina mooge iyo dhowr kale hadday dadkii ay leeyihiin war anagu qabyaaladda waanu ka kornay dee qabiil baa lagu soo dooranaya nin qabiilka kala dooranayo ku dooranaya ninkani waa nin wanaagsan ma jirto horta taa horta ku xisaabtamina in laydinku doorto waa rag wanaagsan layskuma dooranayo hargeysi maaha stubris maaha maamulka bishuga stubris maaha ciday doorana way yaqaanaa waxaad weydeen saleybaan afar jeeble ayaa waxa uu ku doodayay maalin aniga madaxtooyada ay wadata haddaad maayar doonayso madaxtooyadu cid aan raalli ka ahayn ma soo baxayo that's the bottom line wax meesha yaalla oo kale ma jirto hargeysa maamulka ka jira ama nimanka tuugta ah ee mataqaanaa dee waxaan markaad aragto nin baa maanta wuxuu yihi markaad maqasho somaliland maxaa kuu soo baxaya waxaa kuu soo baxaya yuu yihi tuug ma dareentaa buri inay tuugi jirto xeer yani tuugnimo inay maskaxda kusoo dhacday buri waa runtii markaad iminka saa u eegto somaliland maqasho waxaa kugu soo baxaya dee tuug baa maskaxda kusoo dhacsa dad wax xadaya dad wax dhacaya dad mataqaanaa hantida ummadda inay bilaqaystaan u jooga meesha hadday kilometer tahay hadduu xildhibaan yahay wuxuu kusoo kala hayaa file golaha deegaanku waxa lagu soo kala hayaa file maanta yaanu file u furnaa yaa maanta aanu war kilometer dhul ma haysaa meel soo cabiro wadal kasta ninkii lahaa waanu oranno laba boolood baan soo habaynay saasaa lagu sexday habeenkii war maxaa balood dan guuda adduunyada maanta aan ku noolnahay waxa halkaasaan Paris-ka ku yaala loogu talagalay dadku inay ku nastaan maanta magaalada Boorama meel aad istiraahdo ku naso ama magaalada Hargeysa meel aad tiraahdo maanta bal iskaga naso oo bal buuqa iskaga yaray oo qaadka kaga naso oo iskaga dalxiis oo fariiso oo joogo inta tagto mataqaanay afarta gaalnimaad caawa ka imanayso mataqaanaa 8 habeenimo ka imanayso oo meel lagu tukada leh oo mataqaanaa qurux badan oo flowers leh oo jirdiinooyin leh oo umadu ay ku nasato oo mataqaanaa 2 kilomitir ama 3 kilomitir ama kilomitir ba miyaad ka soo helaysaa ma jirtaa meel dan gudo maanta dadka ku nastaan ma jirtaa no ma jirto meel aad fadhiisan karto oo aad ku nasan karto oo caruurta ku ciyaari karto ma jirto balay garan caruur ku ciyaarta ma jirto no uma design garaysnaba u qorshaha ma jirto waad aragteen garoomadii baa la iibinayaa boor waxa laga yaabaa inay 3 garoon ama 2 garoon leedahay tood gibigeedaba eegada 2 garoon baa laga yaabaa inay leedahay laga yaabaa garoonka biroole iyo garoonka kale mataqaanaa hoose ku yaala balada garoon kale saddexaad iyo soo sheega garoon kale oo saddexaad oo soo raacay gobolka awdal degmada Boorama 2 garoon bay leedahay labadii garoon baa waliba mataqaanaa suuq ku jira iska daa meel kale lagu nasto iska daa meel dan guuda masaajidka meesha waa loo iibinayaa jaga la iibinaya weey yahay balada u fiirsada waxaan eegasan yani waxaan ka dadku dhalinyarta waxay ka hadlayaan ee ay leeyihiin waxaan noqon doonaa xildhibaan noocaniya oo xildhibaan saan loo doorto xildhibaanku waa nooca noqda yani waynu oran karnaa xildhibaanku waa nooca noqda laakiin dadku ma u diyaarsan yihiin horeysa waxaan ka horeysa dadkan codka bixinaya ma u diyaarsan yihiin inay doortaan xildhibaan aan beeshooda ahayn oo ummadda wuxuu qabanaya ku dooranaya ma dhici kartaa taaba isweydiin soo baahan ma dhici kartaa ruush in lagu doorto la yidhaahdo ruushow waxa tahay nin wanaagsan maayar baad u qalantaa maayarnin waanu kuu doorananaa iska daa mataqaanaa ama xildhibaan baa kuu doorananaa beeshiisa xataa ogolayn jufada uu yahay ma xataa ogolayn ninkani wax kaloo ka hadlaa waad aragteen ninkaasi professor weeyaan jaacadda camud maxaa looga eriyay waxa looga eriyay waxa la yidhi ninkani wuxuu ka hadlaa wuxuu idhahdaa ummadda u hadlaa waa laga eriyey do you think markaa inay beeshin kugu raacayso ninkan waa nin wanaagsan oo xaqa ummadda u hadlaya ummaddu wax usoo dhicinaya ummaddu deegaanka u hadlaya gobolka waxbuu hagaajinayaa ma laga yaaba in lagu doorto no absolutely waxaasi ma suurtagal maaha deegaankana weli halkaa muu gaadhin ummaduna weli halkaasi may gaadhin waxaan leeyahay horta waxa ka horeysa environmentka wax lagu dooranayo waa noocee dadka wax dooranaya waa noocee ma dadka qaldan markaasi mise xildhibaanka la doortay ee mataqaanaa saa loo doortay baa iyo qalad kale waxaan aaminsanahay dadka qaladkoodu waxa weeye waxay qofka ku dooranayaan waa beelnimo beelaa tartamayaba tartan baa lagu jiraa waaba tartan beelood
tartan beela u dhaxeeya oo le annagaa inaga xildhibaano badan iyo annagaa inaga tira badan baa lagu faanayaaba hadda dadkani saasaa loo shaqaynayaa banaanka marka dee maamulku arkayana maamulkuna xisbiyada ad aragteen nin dantooda ka shaqaynaya lasoo saaranaya lama soo saarayo nin danta wax kale ka hadlaya lama soo saarayo yacni xildhibaan sharaf leh oo doonaya ummaddan inay change samayso dhaba mar rabo lasoo saaro lama rabo lama doonayo taa horta ogaada waxaa la rabaa dadku inay ila meeraysada ku jiraan baa la rabaa ila meerayso hadda u fiirsada qofku marka uu meesha tagana ama ha yidhaahdo beeshiisa waxba ballan qaado uma ballan qaadayo ruush uma ballan qaadayo beel kalaa waxu qabanaya uma ballan qaadayo marka xildhibaanka la doortaan ka hadlaya xildhibaanka waxaa lagu dooranayaa beeshiisa wuxuu leeyahay anaa idiin matelaya golaha deegaanka anigaa wax idiin qabanaya anigaa resourceka idinka faa'iideynaya qofaan shaqaaleeyo qofaan lacag siiyo qofaan mataqaana wax kale u qabto midaan jaga siiyo midaan dhulka usoo sameeyo yacni aniga meeshan mas-uul idinka oo miiska idin fadhiyaya idinkaa idin fadhiya maalintuu fulana dantiisu ku hadlaya dantiisu waa shaqatago isaga shaqatagaba iska daa cid kale waxu qabto beel kale oo uu waxu mateli karaana ma jirto tiisii buu ka goosanaya oo telefoon ka xidhanaya markaa ninka beeshiisi telefoon ka xidhanaya kuwii soo doortay ceedda u joogay bacadka u joogay telefoon ka xidhanaya ma cid kale dooranayaan markaas u malayn maayo dee horta waxay ahayd dadku qofka waxaa lagu doortaa alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum waan kaa qaaday maanta waxaan ka hadlanaa dhalinyarada gobolka awdal oo ka hadlaysa weliba ahayd dhalinyaradii rabsay in isbedelka la sameeyo ee maamulkaasi jira inuu xaaraan yahay waxqabad maxaan ku dhaha change lagu sameeyo power sharing la sameeyo saami qaybsi ka hadli jiray ayaa maanta waxay leeyihiin golaha deegaankaan isku sharaxanayo oo waxaan rabnaa ummadda u ballan qaadana inaan daacadnimo ku shaqaynano ma la dooranaya kuwaas may horta markaa fikirkayga ka dhiibto haddii ay meeshu tahay meel wax la wada leeyahay amba dad hagaagsanin ay ka shaqaynayaan amba dawlad ay tahay amba system xalaala oo dadku ay xalaal wax ku wada cunayaan oo nin kastaba ninka kale xuquuqdiisa ilaalinayo oo walaaltinimada dadka ka dhexayso oo wanaagu ka dhexeeyo oo wax wada cunista iyo wax wada garashada iyo wax isla lahaashadu hadday ka dhexayso oo marka horeba ad sii ogeyd way fiicnaan lahayd laakiin reer awdal waa aqoon-yahan waan garanayaa laakiin ma joogaan meeshii ay ku shaqaynaysa meesha waxaa tala laakiin systemka waxaad u yar fiirsataa cumarow ninka waddanka xakuma PhD musica may maxaa la yidhaha kuwa la shaqeeya oo dhan ehelkiiyo qaraabadiisa ee ku meersan PhD may sitaan may ka ugu sarreeya dee dadkan systemka inay damba garan maayo ka ugu sarreeya ka ciidan xakuma ku kaste waxaan u malaynayaa dadaan waxbaba qoraynin baana ku jira sida la sheegayay markaa nin dee isku levelba maaha islamaba jaan qaadi karaan nin waa nin xoog wax ku doonaya nin waa nin le sideen gobolkayga u gaadhsiiyaa dadka kale aan uga sarraysiiyaa nin waa nin le in dhulka sideen dadkan uga qaada aan hadlaynin ee maaragtay khuruujku marka waxaa la yidhi cumar culummadu markay dhalinyaro badan ay khuruujka saaraan ee diintu dhalinyaradaasi dhex galaan ilo diintu kuma duxine dhalinyaro waxaa jirta qaar combyuter bay la qaadaan oo way isla hadlaan dhalinyarana si yaroo kale noqdaanba oo adduunyadiina waxbay ka fahmeen inay waxan oo dhan ba wax dee khasaare ay taagan yihiin nacam waxay noqdeen dad moralisey markaa dhalinyartii boorama waxay noqotay moralisegaabay ku jiraan oo markay soo baxaan ay maanta is yidhaahdiin wax kasta waan bedeli karnaa halka yaree hargeysa waxaa fadhiya nin xoog wax ku doonaya nin xaaraan wax ku cunaa nin doonaya siduu isaga cashuurta uga qaadan lahaa nin isaga gobolkiisa ku dawarsi tago oo kusoo qaata intaa oo mashruuc waxa lacag soo galaysana maamul beelaadka reer boorama war uma hayaan waxay war u hayaanba ma jiro cumrow dhalinta waxay ku doodaysaa waxay leeyihiin haddii aanu baawarka nimaadno oon golaha deegaanka nimaadno ama baarlamaanka tagno
أنا waxaan idhahdaa haddii xitaa ay loo doorto rag mutacalimiina oo maanta raggaa la doorto hargeysa waxay ka yihiin waa asalmadoorshe waxa la shaygu marka waxba uu bedeli waayo waxba bedeli karaan baan leeyahay waayo dee mooshinno ma buuxinayaan oo dee mataqaanaa codkooga lama maqlayaba qofka wax codkiisa la maqlaa waxa weeye marka uu dee awood ku leeyahay maxaan ku dhaha baroonka dhexdiisa marka maadaama ay sidaa yihiin oy asalmadoorshahaaba yihiin hadday hargeysa tagaan iyo hadday boorama joogaanba booramana waxaa la rabaa ninka soo baxaya waxaa la rabaa inuu noqdo nin maamulka ku xidhan baa soo bixi kara nin kale ma soo bixi karo waayo dee subir maaha mataqaana maamulku wuxuu ogyahay nin u shaqeynayo garanayo daran karayo waan gartay cumar horta waxaba xaaraana waxaba qaladaba inay dhalinyartii aqoon-yahanka ahayd ee shalay tiri saami qaybteedii ma hayno xaqayadii ma hayno ay maantana ka sheekeeyaan doorashooyin iyo waxbaa jira nacam ninkani taargetkaaga u haystaaba shalay waxaad ka hadlaysay xaqaagaad ka hadlaysay waxa la yaabanaa nin reer boorama oo xaqiisa u hadlo dhalinyaro siduu usoo baxay baa la isleeyahay way yaaban yihiin imaka cumar hadda inamada banalka fadhiya mid kamida jaamacadda lagaga eriyey oo professor jaamacadda camud macalinka ah baa laga eriyey oo lagu yiri niyo waxaad wadaa waa qalad oo waxaad ka hadashaa power sharing baad ka hadashay oo siyaasad baad ka sheekaysay marka laguma ogola inaad jaamacadda wax ka dhigto haddii la doorto sidee loo dooranaya markaa nin dadkii yani bulshadii buu ka takooran yahay qofkii waxa leeyahy waxa la rabaa qof maamulka ka hor yimaado lama rabo qof maamulka mataqaana wax ka sheega lama rabo ninka maamulka wax ka sheegaa uu takooran yahay dalka gudihiisa markaad aragto waan gartay cumarow meesha waxaa jira aw cimaamad khasaartaa meesha joogta cimaamad khasaartay subaydii baa jooga meesha cimaamadaha dhaadheeraa ruufiyadaha dhaadheeraa iyaalkan hore u cunay baa jooga madaxtooyadii ku xaadiraya 24 saaco $100 loo soo tuurayaa bishiiba oo lagu guumaystaa iyaga ugaaskoodii sidaa u ciyaaray dadaguursi magaciisa gumeeyaan meesha jooga kuwii baa soo xula laleeyahay cumar dhalinyaradan ikhtiyaar ay ka soo baxaan maya hadday dhalinyarta kusoo baxayso oo dee ay leeyihiin ay kusoo baxayaan oo qabiilka laga tegay oo qofka lagu dooranayo yani awdal hadday dooranayso qofkii xildhibaankii dooranayso wax la gartay laakiin qabiil baa lagu xulayaa odaybaa soo xulaya odaybaa dooranaya beel baa dooranaysa qofkan beel baa meel geysanaysa oo wadata oo suudaankoogii iyo siyaasigoogii baa ninkan wata nin ay wataan ubaa shaqaynaya laakiin nin kule anigu wax isbedel baan keenayaaba lama rababa waan gartay cumar dadkan wayna dhalinyartu waa inay ogaadaan 30 sano gobolka awdal siduu u shaqaynaya dawladii xamal markay jirtay waa la garanayaa aerobood buu lahaa deked buu lahaa wax kastuu lahaa yacnihii 30 sanana wax kasii dhacamana waxma kordhin cashuurta 30 sano laga qaado gobolaan magacooga garanaynin iyaa cumarow soo shaac baxay waadigan arkaya oo lix boobooda reerku ay leeyihiin baa lagu haystaayo odayga sheekh aadan siiro la yidhaha wuxuu yidhi badda siduu nin sacad muuse ina yaro sacad muuse siduu bad ku waayey buu yidhi oo ka gadaguursina badu haysani waa inaan sheekada meesha taagan waa culimadooda yani dad saa hadda waxaan rabaa inaad horta ila daawato nin la yidhaahdo ramaax oo degmada berbera ka hadlaya wuxuu yidhi dadka la diiwaangelinayo ilmaha 8 jirka waa in la diiwaangelinaa buri taasaan rabaa dadku inay ila daawadaan waxaa dadkan awdalna nin 15 jir baa bil ka dhimantaa la leeyahay nin bishaas kaaga dhiman iska joog eegada oo hooyadii waxay leedahay ninkan bil baa uga dhiman oo bil markaa ma gaarin meeshii haday la daawadaan oo horta waxaad qofka u wiilin kartaa markaad kaarka qaadato weliba anuu tilmaam baan siinaya idin odhan maayo 15 jirka xeebtu wuu gaagaaban yahay kaalay adeero hal naaskeediina kaa gaadhaa kan adeer hal naaskeed ilmihii gaadhaa ama inan ha noqdo ama inan ha noqdo kaarka ha qaato waxaan taa idin leeyahay oo aanu sheegaynaa oo aanu dadka ku ballaminaynaa in ninkaasi waxa uu yidhi qofka gaadha hal naaskeed qofkii gaadha hasha naaskeeda qofkii gaadhaya dhalinyara hadde hashu waxa weeyaan waa mitir baan malanayaa candhada dhulka ku jirta mitir iyo waxoogaa filaya wuxuu aaminsan yahay wuxuu leeyahay ninka hal mitir ilmaha hal mitir gaadhaa waa inuu kaarka qaataa buu taagan yahay ninka nooca u fikiraya iyo ninka u fikiraya ilmuhu 15 hadduu ka yar yahay kaarku xaq uma laha ninka u fikiraya ma isku meel bay kula noolaan karayaan baas leedahay
وأبانك حلوة عمره أنا ولي ضد على نهاي ضد دولة نما وبسلاري بالنهاي دولتها شارك ماشي دون تجيبها كبلو جبوتي كبلو صوماليا ما أنت ضد كان مسكعة إلا خلياشة قوة وين وهذا بتقول فيه تعليم سنة وحتى فايدة سوتنا الشاركة لكن هل كنت توبا هنا عمر لقوة دولية توبا هنا لما فهمينه هذا كان ما بنقارن بالليفل فتوب لماذا ينفعلك ما بتشوفنا كلها هذا اللي يرسلنا ما فهمتنه مركان كلها هي ninka PhD da sitay waxba barto waxba qabanayo ee waxaan u baahanahay kuwa ciyaar suuqina waxa marka xakumayo ka Soomaaliland waa garanaysaa waa dad dawladda soo dumiyay waa dad wax soo dulmay waa ninkiidan ay daliyo kooda ma gaadiyo wax ma kala weyna kuwa waa sidaas weey oo kale iyaan u baahanahay Umar waxaan leenahay gabayba wuxuu ahaa damaanka la kala iibsaday daaqayaan nahay dadku waa damaan la kala iibsaday dadkan waa la iibsaday bari hore waa dad iibsan ninka ka soo dhex baxay iraada waxba bedelaya waa qorta laga jaraya waa dambiila la ninkaas dambiile weeyaan marka waxaan dheerta waxaan leeyahay anigu arintaasi way fiican tahay inaad hami la timaadaan oo tiraadaan waxaan rabnaa inaan isbedel sameeyno laakiin isbedelka waxa meesha ku sameeyeen ma joogtaan qaab kale u sameyn kartaan isbedelka ayaa ka horeysa horta platformkii aad ku sameyn lahaydeen isbedel maanta ma yaalo marka adoo soo gabagabeynaya adeeqay maxaa walaalaha dheerta noocaas ee maanta kule waxba bedelanaa laakiin xildhibaanaan doonaa ama sharxiin ma noo baarlamaanka soo sharaxnaa أنا waxaan ku soo gabagabeynayaa tacliintiina gobolkiina u baahan inagu dhexdiina isku yimaada reerka inta awal isku nool amba intaha inaga degan raafidowtiina noqdaan amba gabooye amba qoladii inaga degan awal dhexdeeda isku yimaado dood yeesha horta inagu cashuurtiinu maxay ku baxdaa wuxuu gobolkeenu sida lagu eegyahay waa meesha qoomiyad Soomaaliland waa qabiil waxay ku dhisan tahay nin kastaba wuxuu doonayaa maanta qabiilkiisa inuu wax helo in wanogna Umar samaroonka wajaala degan gabilay samaroon baa la iska degan dadkaaba maalin kasta nacam waxa lagu hayo waan ognahay dhulkoodii la riixayo oo dad kale la dul keenayo waan ognahay liidayada doobad inay ilayhiin qayayo inanka dalbuursado bad u helo ka sacad muuse u helo la leeyahay waxaan lahadaa ka fikirna doorasho iyo waxani siday ku dhacday horta dhaha waxaan arkayay in maxaa la yiraahdaa in la keenay odayga afka dabada daayeerka lahaayeen maxmed Soomaali oo qola horta socda oo milixdan baan u keenaynaa le dhaqaale oo shirkadaha Hollandeeya la keenayaayo waxaan guraynaa suuqgeyn Djibouti milix bay ciiraysaa Djibouti baa u baahan wax milix ka iibsada waxyaalo badan baa dhulka ka socda dadkan waa nacamdushooda ma ahin sheekaduna Djibouti kama socoto waxa ka socota waa heegada waxa doonaysa dhulkaas sayla inay ku shaqaysato amba milixda ay ka burato iyadu iib geysato amba ay waxa weeyaan weji baa laga dhiganayaa Djibouti weji yaa laga dhiganayaa masaakiintan halkan isla deganay xeebtan deganay isdhalaanna male waxba maru ma hayaan lixdankii bay seexdeen mana baraarugsana kii PhD gobolka awdal joogay ama saylax ka soo jeeda amba luqayo ka soo jeeday wuxuu leeyahay waxbaan bedela waxba ma bedeli kartid baan leeyahay ilaa aad u fiirsatid waxa hareeraha ka socda oo la fahansid adduunka maanta Afrikada siyaasadeedu way isbedeshay isbedelka ilaa madaxaaga uu ku soo dhaco waxba hargeysa ku wareeg war tacliintiina Muqdisho iyo dhulka ordo uga faa'iideeyo dawladaha dadka la dhisan leeyahay oo maskaxdiina la soojiyo gobolkiina gaar ahaan xaqiisii cadaaladiisii oo ku lahaa maxaa laga dawladda xabar ku soolida oo dulkan iyo dulubtan saaran hooyooyinkiin iyo cashuurtiina maalin kasta bilaashka lagu guranayo ka bilaaba ka maayirka miya ilaa goladeegaas karbaasha xaq baad u leedihiin dhulka la dhaca la xisaabtama maalintaada soo baxaysan imaamad khasaartayna dariiqa ku ridaan leh maanta imaamad khasaartay ka hoos baxdiin qabiil aad ka weynaatiin reer aad ka weynaatiin umbar heer gaadhay inta ka horeysa waxa ay nin soo fikiraya Faysal Cali Waraabo waan ogeyn ayaama hore inuu la wareegay lacag oo gada guursiga mid hotel kula shiray saddex hotel ay samaysteen kula shiraya leeyahay oo lacag siinayay oo lahaa xaqiina u doonina ilaa ay gurka iska qabanayaan yuhuudda Falastiin soo dhaxgashay iska qabanayaan wali oo heer magaalada waxaan leeyahay waxaas wax in la qabto maaha dhulkiina xayira u soo jeesta kuwa kale shirkadaha naligu keenay khayraadkii gobolka awdal la buranayo sayla ay keenanayaan heega wadata Djibouti maaha Djibouti way u bislaysaa waxaan ka sameeyay bislaysa laakiinse meesha ayaa iskale ayay wax ka go'aan dhalinyaradu waa inay xisaabtamaan bal waa kale barbar maanta cilmi laga qodayaayo
sida gursida hor socda ha la yidhaahdo war waxaan odhan lahaa indhaha fura oo iyaal suuqiinta gudadkaa soo qaataan kuwa beesbiisitana meelaha ku warwareega oo kolba jaakeed yaroo khatara soo gashada gobolkiinoo bilaa airboort iyo bilaa deked ha ahaado weliba sasabaa maalmaha kumar oo meesha ka socdo maanta waxaan arkayay in maxaa la yidhaha dhulka barafka samaysto oo in lughaya ayaa loo dhisayaa dhagax baa la dhigay maanta waa sasabo khaayinimo ma rabno annaga oo waxaa dhisan karna dhowr qof oo isku tagta ayaa kaa dhisan kara anagu deked baan rabnaa dawladda cashuurteeda deked bay noo dhisaysaa deked baan rabnaa taasi nama seexinayso dhulka in la seexiya loogu talagalay seexin baa socoto cumarow ha laga soo jignaado dhalinyaraduna badan a iyo balan b waa inay la timaado maanta waa la kala urursanayaa sanadii 8 bilood baa odaygan u hadhay nin kastiba balanyadiisa uu diyaarsaday cashuurtay waan joojisanaynaa anagu taayadan urursanaa maalintaas nolola yimaadaan ayaan diyaar u nahay bay leeyihiin annaga ururna innagana waxaan leenahay cashuurteena inoo joojiyo oo gobolkeennaabu soo goosanaynaa innagaa isku filan ba innaga iyanka degta meesha inta qole kuwada nool baa isku filan yuhuudda falastiin iyo waxaa heegada qarmuun ee inagu dul nool ee inaga nagu dul faa'iidaysanaysana iska dhex saaran odhan lahaa maalintaabad indhaha furaysiin maan leeyahay cumar asalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay damaanka la kala iibsanayo ee daaqayaan nahay damaan waa dad la kala iibsaday baa rabaa inay matra xildhibaan noqdaan ama ay soo baxaan marka adayla daawada dhalinyartaas oo ka hadlasa bal hadda waxay damiirkoodu siinaya oo doonayaan hadda bal hadda dhegeysta waa dhalinyar damiirle laakiin damiirkaasi meeshii uu ka shaqayn lahaa ma joogaan xildhibaanka aan doonaynaa waa kuma iyo dhammaanba tiimkaygana waan wada salaamaya salaanta islaamkaadi ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi horta 7 sano ayaan waxaynu ka hadlaynaa golo deegaanoo aan shaqadoodii gudanayn qaylada isgaadhay culimaa ka hadashay siyaasiyiin baa ka hadlay ganacsataa ka hadashay aqoon-yahan baa ka hadlay cid walbaa ka hadashay markaa 7 sano yani iminka waxaan yani qaybtii ugu dambaysaan maraynaa oo xilliyadii mataqaanaaye dee suurta laafuufay oo kalean ku jirnaa bulshada waxaa laga sugayaa markaa waar haddaad 7 sano cabanayseen maanta maxaa diyaar u tahay ninka la yidhahdo albert einstein ayaa wuxuu yidhi iminkoo kale masalan haddaad isku darto shaah iyo biyo iyo caana haddaad isku darto dee shaah baa soo baxaya haddaad intaad orada tirahdo wax baan bedelaya haddana intii aad ku celisood bun sugto dee bun soo bixi maayo shaah baa soo baxaya markaa nidaamkeennan aan wax u dooranay wax ka qaldan yihiin markaa anigu aanon dheerayn waxaan nidaamka markaa xildhibaanka la dooranayo jaranjo wuxuu waraa meelo dhinacyo kala duwan buu xildhibaan ka soo baxaa oo uu soo maraa waxa ugu horeeya waa dhaqanka waxa weeye caaqilada markaa beeshaasi ayaa iyagu isku tega dabeete markaa kriteriyooyin iyagoo ay yaqaano 60kii shaqayn jiray ayay wataan markaa inankeenna markaa waxaa la odhanayaa masalan inankan waa bilaa camal haye xirfad kale ku shaqaystana ma yaqaano waa laba reerkana dee waxbuu dee nin afmishaaro reerkana dee meesha uu joogo reerka dee wuxuuga la qaadan maayo ma garanayo waxa reerka golaha deegaanka ka yaalla marka kriteeriyahaasi wuxuu keenayaa masalan nin baa waxaa la odhanaya nin hagaagsan baa baktiya nasiib ishaaradu iska qabanaysaa ninkiibaa damac yar yeelanaya markuu yidhaahdo war odayadii ku yar noqday dalan cid kale male iyagu u tegayaa oo xisbigaa dee shuruud uga dhigaya inuu dee odayada wato ninkii waxaa la odhanayaa waa nin wanaagsan oo dee hawshanna ka bixi kara waxa le adiga walaalkaabaa xil haya marka hadduu walaalkaa xil hayo adigu waxa weyn dee ama qoladiina jufadiina yar baa xilaysa marka adigu sheekada waad ka baxday ninkii wanaagsan horta halkaasuu kugu daayey oo caaqil baa cunay taasi waa taa jaranjarada labaad waxa weeyaan waa ninka xoolaha ka bixinaya ama qabiilka ha ahaado oo iyagu dee qaadhaanka ururiya ama ganacsatada ha ahaataba waa ninkii ninkan wax ka bixinayay ninka wax ka bixinaya xoolan xalaal buu ku shaqaystay xoolihii xalaasha ku shaqaystay buu doonayaa qayb ka mida nin tuuga inuu istakfir adu nin buu doonayaa adigu yar wax soo kharibaya inuu yani lacagtii geliyo waxa ku xigta xisbigii waar xisbiyadow rag xisbiyada dad ku jiraan way joogaan waar nin xisbiyadan aan waxaan garan waayay waxay meesha ka qabanayaan waar adiga baa xisbi qaran baan ahay dadka
xisbigaaga soo galaya ama golaha deegaan isku sharaxaya ama golo baarlamaan isku sharaxaya caqligii 60kii dad ka sugto daa waxa lagu keenay ninka aan ku sheegayan soo yersifeeyay baa lagu keenaya marka meesha waxaad ka qabanaysaa xisbiga ma garanayo xisbigiina marka uu gudoomayaa waxa ka oranayaan cod baan u baahanahay waar codka xataa dad cod doonaysa meel xun laga raadiye meel wanaagsan ba codka waa laga heli karaa jaranjarada xisbiga odag markuu soo dhamaysto waa niman markaa garanayn waxaad golaha deegaanka ka horeeyay baan ka taaban doonaa ha waan ayad badabka way deeta markaa ayna dadkii wax dooranayna waxa la yiri in hebel baa la dooranaya markaa niyow xildhibaan ku haboon golaha deegaanka sideen u heli karnaa aniga waxay la tahay kullay sida waxa loo baahanayaa marka wuxuu caadiyo dhaqan noqdaan waxa loo baahanayaa sida maanta sameeyay oo kale habeen dhaweed aan meelkan aan ku shaaciyay ano xildhibaannimo markaa doonayo golaha deegaanka inaan isku soo sharaxo indhahan iska soo qaadaya wallahi haday markaa meelun bay ama way ila gooyo waan dhici ama waan soo bixo si kala garan maayo si kala ma garanayo waa runtii professor ruush waa runtii oo wuxuu yiri indhahan iska qaadaya oo mataqaana cidi dooranaysa ma garanayo waayo haddii la eego maxaan ku rahdaye degaankii la eegayo dadkii qabiil baa dooranaya nin lagu dooranayo nin wanaagsan baa tahay oo ummadan wax u qabanaya horta ma jirto taasi horta qorshaha kuma jirto xisbigana uguma jirto systemka maamulkana uguma jirto nin wax qabanaya oo dan ka hadli kara ama saami qaybsi ka hadli kara ama qadiyad ka hadli kara ama ummadda mataqaanaa wax u sheegi kara jihayn kara lama rabo waxaa la rabaa nin la joojiyaana bannaan la jiifiyaana bannaan midda kale nin baa kusoo tabcay saa uu sheegay nin baa kusoo tabca lacag ka bixiyey nin baa lacag ka bixiyey oo investment gashaday nimankan adalka sar xildhibaanadan dad baa investment gashanay waa investment waa la invest gareeyo waa la maal gashaday nin la maal gashaday magaalada Hargeysa bari waxa kula kulmay aniga jooga 2013 baan hotel baan ku wada jirnay nin igu yiri reer awdala 3 bilood baan joogay magaalada Hargeysa 3 bilood hotelkan ku jira hotelku habeenkii waa $10 buu ku jira kharashkiisii adoo almost $20 baa ku baxa maalintii 3 bilood bal maraya bi gudon jooga halkan waxaan ku maxaad u joogtaa marka waxaan moodaynay harin kala haysato dhibaatooyin kala haystaan u joogo ama si kala u joogo ninka wana qanaanay buu ahaa oo dhalinyaro oo qanaanay buu markaas uu guri waxaan doonayaa jago in la iga magacaabo gobolkii Awdal marka boss buu taamo wuxuu yiri boss kaasaan doonayaa marka wuxuu guri niyo lacag baa iga taala madaxtooyada $5,000 aan dhigay allahin baan meesha u joogaa hawshaasan ku jira in la magacaabo boss kaasaan rabaa oo u jooga intaas markaasaan ku yiri niyo bosskan intaasaa kaaga baxday so far 3 biloodna waa joogtaa hadii lacagtaas ku geyso almost lacag $10,000 gaaraysa ayuu qabaa waqtiga inta uu joogay kharashka ku baxay oo dhanba iyo lacagta uu bixiyo waxa uu $15,000 baa kaga baxay intuu joogay walina wax ma hayo markaas uu wali waxna ma hayo markaa wali waan jooga markaasaan ku yiri hadday adaba waad in lacagta ma bixisay waaba lacag baad haysataabe waad iskaga shaqaysatid hawlo kale ku qabsatid markaas uu yiri niyow hadaan meesha la magacaabo maalin baa kusoo saaraya intani oo hal booson hal jago oo mataqaana qof hoos mariyo ayaaba $20,000 noqonaysa marka horta dadka soo baxaya wadada nooca ku soo baxaya nin aan connection lahayn ma soo baxayo nin lagu dooranayo wanaag iyo sharaf iyo karaamo iyo aqoon ma jirto iyo daacadnimo ma jirto waayo dadku wali ma bislaanin in beel laga gudbo oo qofka lagu doorto wax qabadkiisa anu hadaan maanta isku soo sharaxo deegaanka Edmonton isku sharaxo magaalada deganahay waa in recordkiga la soo saaro ninkan recordkiisu waa maxay muxuu umada u qabtay bulshadiisa ma ku dhex jira community-ga member ma ka yahay active member ma yahay oo mataqaana dadka u hadla dadka ma yahay dadka caawiye ma yahay community-ga ma caawiya volunteer ma sameeya dadka ma wax u qabtay bulshadiisa muxuu ku soo kordhiyay muxuu soo kordhinayaa muxuu bartay wacni too many question you name it waxa la isweydiinayo halkaana haddaad tidhaahid PhD baan ahay nin daacadaan ahay nobody cares you waxa laga door bidayaa nin 4 taba cunaya oo 4 taba qaadaya mar camud ku jiray baa nin macallin oo juqraafiga macallin oo ahaaba wuxuu yiri niyo ma waxaad aragteen buu nin
$50 mushaar ma taqaana meel $50 mushaarkeedu yahay u wata siyaasigiisii iyo aqoon-yahankiisii iyo odaygiisii iyo caaqilkiisii iyo wasiirkiisii wata kale ninkan meesha loo geeyo mushaarka meesha ninka la geenayo waa $50 weeye laakiin macnaha waxa weeyaan buri ninkani waa tuug xariif ah oo xadi karaya meesha loo geeyo dalka taasa taala waxa dalka yaala groundka yaala ninku wax ma xadi karaya wax ma cuni karaya ninku waa inuu first yearka uu meesha joogo waa inuu dhowr guri dhistaa horta dhowr guri waa inuu dhistaa ciyaalkiisa waa inuu diraa waa inuu Turkiga u diraa waa inuu mataqaanaa meelaha soo wareego waa inuu mataqaanaa laga dareemo ninkani maalintu ibdana waxa ninka mushaarkiisu $50 meesha u tagay ninka xildhibaanka mushaarkiisa waa la yaqaanaa bal u fiirsan maanta hada xildhibaanada golaha deegaanka bal u fiirsan oo noolihii ma u fiirsada xildhibaankaasi mushaarkiisa waa la yaqaanaa waa la og yahay maanta mushaarka qofka xildhibaanka qaato waa la yaqaanaa waa fixed wax la yaqaano weey oo loo yahay bal u fiirsada hada xildhibaanka golaha deegaanka ee maanta aad joogtaan bal u fiirsada simple waa waxa ugu yar weey marka nin oo horta ku xisaabtan maydani iyo mahruush iyo horta ku xisaabtamina in la idin doorto maxaan ku raadayay la idin doorto aqoonyahan baan nahay dad wax bartay baan nahay dhalinyaro wax bartay baan nahay wax baan bedeli karnaa daacadnimo baan ku shaqeynaa wanaag baan ku shaqeynaa cirta idin qof idin kuma dooranayo laakiin beel baa idin dooranaysaa beeshi nin walba isa dooranaysaa nin ay beel kale cod guridiisa horta ma jirto beel nin kale cod siinaysaa horta ma jirto de waa waxa groundka yaalo waa systemka groundka yaalo waa ka weey marka systemka horta anu waxaan aaminsanahay horta systemka horta in defeat garayo horta gebigiisaba systemka marka laga guuro oo dhalinyartu ay noqoto inay awoodoodu ay waxay soo bixi kartaa markay no yiraahdaan waxaan inama anfacayo xeerkan degmooyinka xeerkan waxaan lagu doorto waxaan wax anfacayo ummadda ma yahay horta waana horta la dhisay laga dhigaa kabacdi la isbedelo wax kale la keenaa markaas oo dib loogu noqdaa laakiin haddii ninkii weynaa uu tuug yahay dee ninka yar muxuu noqonayaa ma tuug buu dooranayaa ka weyni ma wuxuu dooranayaa qof wanaagsan buu dooranayaa kii weynaa baa tuuga meesha kii weynaa tuug yahay oo ninka xukuma uu yahay nin waxba qorin waxbana akhriin nin PhD ma qoranaya isagu ma qoranayo dee mari baan waxa ninka sheegay Sacuudiga wuxuu yiri nin wax qoran waxna akhriya ma ahayn hadana shikrad buu ka noqday maalinta ka noqday ninkii markaasa dee rima saaxiibadii iyo PhD ama master ayaa guriga la hurda waxay ku yiraahdeen waa niyo meeshan nageeniyo ninkan markaa qof wax akhriya ma geeyo meesha wuxuu yiri waa niyo hadaan idin geeyo idinka meesha la iga saaray aniga markaa idin geeniyo meeshna fadhiyo kuriniyo akina jooga ana masruufi kuri marka waxa weey meeshan lama rabo qof wax yaqaan lama rabo nin daacada oo le change baan sameynaya waxbaan abuuraya isbedel baan keenaya daacadnimo ku shaqeynaya dadka ila xisaabtama oo check and balance baan rabaa inaan dadka kula shaqeeyo ay kula shaqeeyaan oo la ila xisaabtamo waxaan u qabtay nin kula xisaabtamaya ma jiro waxaas qofku kula xisaabtamaya ma jirto hadduu maanta meedhana soo baxo dee nin reer dudugo oo meel geynaya ma jirto ma geynayo dee waayo wuxuu og yahay in waxaan dembi tahay inuu khiyaamo sameeyo og yahay ruush hadduu maanta yidhaahdo barasaab noqdo maxaa mayrka magaalada noqdo dee nin mataqaanaa jufadiisa meel ma geynayo wuxuu ku shaqeynayaa sharciga u yaala ee meesha u yaala inuu dabaqo oo cadaalad ku waayo wuxuu ku ballan qaaday inuu cadaalad sameynayo hadduu nin jufadiisa meesha keeno markaasi ma cadaaladdaas hasi noqonaysaa marka qofku wuxuu ballan qaaday horta waa inuu sameeyo hadday ballan qaadaan oo saa ku dhaqmaan oo la doortaba isbedel ma imanaya dee isbedel wuxuu ku imanayaa dadkii kale oo dhan wada tuuga dee kelida wax noqoto ka bacda noqotaa tiri waraxan ma shaqeynayso nin baa beri nin loonje Chicago ayaa beri maayir ka noqday magaalada Boorama markaasuu wuxuu keenay dee sharciyadu bedelo wuxuu yiri war waxna waa sidaan saas loo shaqeynaya markaasay oo gabiyeen waxay yiraahdeen Chicago intaad ka yimid wax dalkii deegaanka wixii ka jira horta inaad baratay bay ku yiraahdeen niman geometraa niman ma taqaanaa marka degolada gaar ma jirin be marka golada galbeed jiray laakiin waxa jiray de ba taqaanaa waxa jiray maamulku si loo shaqeynayay buu ahaa de isagu madax u yahay marka de wixii oo dhan baa ka hor yimiday ummadii baa ka hor timid kelidii buu noqday ummadii ayar buu ka akraa meesha waana iyagu waxay yiraahdeen Chicago inta ka iman bay yiraahdeen dalkii dadka waxa ka jira horta inaad baratay hadbay ku yiraahdeen sida loo shaqeeyo horta inaad barato haddii sidan Chicago laga shaqeyn jiray qaabka wado halkan kama shaqeynay Chicago ma halkan this is not Chicago bay ku yiraahdeen this is Boorama la yiraahdaa qaabkan baa loo shaqeeyaa
waxbaa la dhacaa waxbaa la ninku wuxuu ku nool yahay mataqaanaa inuu qofkaa fuushanaado inuu 100 jago kala xaraasho inuu qofka 10 jago laga kala iibiyo wadeeg system sidaa u shaqaynaya oo noocaasa dee lama odhan karo qof kaliyaati ma defeat garan karo ummadda intaa leeg ku dhex waalanaya laakiin horta waa in horta ummadda la bedelaa ka horeysa dadka horta in la wacyi gasho dadka horta waa in wacyiga dheerta la bedelo odayaasha waa in meesha laga saaro waa in dheertu ayagu ay gartaan inay jiinka yihiin inay waxaan iyagu leeyihiin ay gartaan inay la xajala ka qabato in aan qofka qowlnimo lagu dooran waa in dadka la baro horta qofku inuu mataqaanaa danta guud inuu ka shaqeeyo horta in la baro wey laakiin qofka haddii la baro qofka danta reerka la baro nin danta reerka la baray baa raba inuu ummad u shaqeeyo siduu u shaqeyn danta reerka la baray be nin cid soo doorato investment la geliyo ciddii investment gelto buu shaqeynayaa simple waa intaas marka waxaan leeyahay ruush iyo saaxiibadayda kale ma jooga muxuu ahaa iyo nimanka la yidhahdo mukhtaar iyo waxaan leeyahay way fiican tahay inaad salaagaraysaan waayo bulshadu waxaa la yidhahdaa meel ku wada nool waayo inay mataqaanaa oo ku socdo suurtagal tahay maanta qaadanaya dhabbada qaanuunka isla markaana ilaalinaya xeerarka iyo saraynta sharciga maasantahay awal waxaan celinayaa xigma marka labaad ku faraxsan inaan joogno awdalo bariyahan hormood u ahayd fikirkii Soomaaliland la wada leeyahay cadaaladda iyo sinaanta tiin wax rajeenaya si wadaan oo idaan ka daalin si Soomaaliland uu noqoto Soomaaliland ay rabno doorashooyinkeena mashquul taas waa qodob qofka waxa la weydiiyay xildhibaanka dooran doontaa waa kuma ama waa tuma horta waxa koowaad waxa weeye inaad adigu is weydiisid oo qofkan aad diranaysaa muxuu ahaa marka way soo dhawaan karaysaa xildhibaanku waa inuu yahay qof mas'uul qof mas'uul oo mas'uuliyadda saaran tahay oo mas'uuliyadda u hooseyso qoyskiisa yalku wax ka qabto wax ka qaban kara weynay responsible ma yahay qofka xildhibaanka waa inuu mas'uuliyo waa inuu yahay qof wakiila oo ay ka dhaxayso xiriir wakiilnimo kii dirtay iyo isaga oo muddada uu joogaya cadiiman tahay sida hadda kuwa jooga maaha oo baahida dadkiisa yaqaana waxay doonayaan yaqaana damqashadooda yaqaana dhaqdhaqaaqooda yaqaana oo marka uu shaqaynayo joogo golaha wakiilada Hargeysa aan codkiisa ku hadla matalan codka baki haday baki soo diratay oo taa garanayo miyigii uga beertii oo magaaladii ugu weynay marka waa inuu qofkaad codaynaysa saddex waa inuu qof daacaday daacad waa inuu ka yahay waxaad ku ogaanaysaa wuxuu qabto daacad ma ka yahay hadduu maqaaxi haystay maqaaxidiisa daacadnimo ma ku maamuli jiray hadduu khaayin maqaaxidiisa ku golaha wakiiladana khaayin buu kugu noqonaya marka daacad ma yahay qofkaas afar karti ma leeyahay qof daacada baa jiro bilaa kartida competencekiisa iyo kartidiisa maxay tahay aqoontii baa markaas soo gelaysa wax qabashadiisa baa soo gelaysa hogaamintiisa baa soo gelaysa marka qof karti la meeyahay damqasho ma leeyahay dadkiisa ma la damqada oo markay abaartu haysato dhibaato haysato mashaakil haysto qof empathy laho la damqan kara meey qof danta guud u adeega ma yahay mise waa qof selfish oo danta gaarka ka shaqeysta markuu halkiisa joogo haddaad diratid qof danta gaarka ka shaqeysta shaqada loo dirtay xildhibaan deegaan golo deegaan iyo golo wakiil iyo golo guurtiba wuxuu ku shaqeyn doontaa dantiisa shakhsiga ah ku shaqeyn doontaa waxaad arki doontaa xildhibaankii oo ganacsada noqday oo mashruucyada qaata oo dhulka kaan ka ahayn laakiin ilaa in dad wanaagsan soo saareen la xisaabtami karo haddaynu deegaanka ee Soomaaliland marka laga reebo hal magaalo oo magaalada Berbera inta kale Soomaaliland way xisaabtay oo halkii taageero waxba hayn haddii ilaahay nagu guuleeyo aad ila xisaabtamaysaana waxaan rajaynayaa inaad ila xisaabtantaan markaad joogo halna waxaan rabaa inaan dadka kale ee sidayda sharaxan aan idhaa waxa laga dhawaajay war haddii beel la isku raaco qofku xisaabtan geli maayo war waa qof iyo damiirkii waa qof iyo horta damiirkii dhalinyarta dadka da'da yar iyo dadka waxbartay reeraha way ka go'an yihiin reeraha markooda horeba way ka go'an yihiin ciyaarta markay dhex galaanna waxay noqdaan dadka ugu horeeya markaaba lagu tuntay ee dhaska lagu daro war hadduu ninka xuli reerka yahay ninka wanaagsanina waa reerka lagaama xaq laha nin geed cidlo ka baxay ah ma tihid waan qabaa in هو ساوش مختار شيء مختار وحيري reerka qofku hadduu reer yahay oo reerkii de ku xidhan yahay ninka xunna waa reerka ka fiicanna waa reerka
ninka wanaagsan ee haddaba uu ka go-an yahay oo waxaan ogahay boqolaal dhalinyaro ah oo damc leh oo damiir leh oo ka damqanaya oo caalamka ku nool ama gobolka ku nool ama gobollada somaliland ku nool damqanaya ka xun waxaa jira waan sheegay anigu waan rag badan baan sheekaysanaa mukhtaar wuxuu ahaa saaxiibkay buu ahaa magaalaan wada joognay halkan aan wada deganaan jirnay waan sheekaysan jirnay classmate baanu ahayn yacni dad ka damqanayabaa badan dhibta jirta iyo waxaan ka hadlano iyo waxa jiraba og oo ka damqanaya laakiin meeshii ay ka bedeli lahaayeen aan joogin cid dhegaysata aan hayn wuxuu yidhi dadka waa victim bay noqdaan oo markaaba kabaha la dulmaro waayo nin wanaagsan lama rabo dee meeshaba systemka ma ogola nin wanaagsan waxaa la rabaa nin afmiishaara oo tuuga oo wax dhacaya oo wax hadaya la rabaa in horta marka hore meesha inuu yimaado haasaa la dadku doonayaan waana kule ninka wax qabanaya ee oo danta guud ka shaqaynaya lama rabo waxa la ninkani niyo waan ku khasaarnay kani waa khasaara lagu leeyahay ninkani inta uu joogo waxba kama qabsan cidna meel ma geyn waxbana ma qabsan guri kama dhisan hantina kama dhaqan baa lagu leeyahay haddaba hanti xaraana marka mukhtaar waxaan leeyahay dadka lamida waxaan leeyahay waa taraygaraynaysan taraygaraya garabkiina allaha galo laakiin saas sheegtay waad sii ogtihiin bade macsuulkiibaba sii ogtihiin cagtaa la maraya waad ogtihiin garabkiina allaha galo waan salaamaya meelaad joogtaanba waxaan leeyahay shacabka waxaan leeyahay shacabo haddaad doonaysaan isbedel in la sameeyo nin wanaagsan doorta nin wanaagsan doorta qolonimaa ku dooran inaad ku doorataan akhlaaq iyo edaab iyo aqoon ku doorta simple waa intaas hadduu qofku akhlaaq leeyahay edab hadduu leeyahay hadduu aqoon leeyahay hadduu karti leeyahay hadduu mas-uuliyadda responsibility wax la garanayo qofkaasi waa qof ummadda wax ka bedeli karaya hana oo ka sugina qofkaasi aad doorateen inuu wax idiin qabto oo yidhaahdo mataqaanaa qoloqolo wax idiinku qabto oo yidhahdo ninkani annagaa meesha geysanay annaga meesha hota ka baxdo annaga waana ka baxday weyn oo la yidhahdo ninkan damiirka waa inu qofka diro qofka waana dan guud buu ka shaqeynaya wixii danta guuda ummadda ee janala ummadda uu shaqeynayo uu qabanayo intaasaa ummadda ku filan marka waxaan leeyahay meelaad joogtaanba waan in le dhalinyarta waxaan leeyahay meeshaad joogtaan meesheedii maaha horta waa ninka 6 jirka iyo 4 jirka u codeynaya iyo hala diiwaangeliyo ayaad meel kula nooshiin msore nin saa u fikiraya ayaa xisbiga xukuma nin saa u fikiraya oo le ilmaha 6 jirka 7 jirka 8 jirku hala diiwaangeliyo le ayaa meel kula nooshiin baan leeyahay dhalinyartaas msore ana mataqaanaa inaad meel kula noolaataan dad noocaasiya aad meel la joogtaan laakiin way dhacday laakiin waxaa la istay xeegana ilka ku nabadgalaan baa loo baahan yahay tartama hawshiina wada waan hambalyanayaa garabkiina allaha galo boorama bookfar waan hambalyanayaa wax badan baad qabsateen waxaad qabsateen siyaasadda kowka adduunyada waxa weeye siyaasadda ayaa number 1 ka siyaasadda gala war siyaasadda gala oo ummaddan change wuxuu ka iman karaa inaad meel aad ummadda ka hay kartaan aad timaadaan yimaada baawarka yimaada ha ku fikirina inaad ka shaqaysaan arrimaha bulshada ka shaqaysaan oo siyaasadda aad ka marnaataan haddii camud laynaga sheegay siyaasadda iska ilaaliya berigii la masaafuriyey nin waxaan ku dhahdaa hollandiis ahaayo rabay dalka inuu wax u qabto dekadiyaxa dhiso oo la yidhi sidee awdal uga dhisi karaa baa lagu masaafuriyey aqoonyahanka jaamacadda camud markaasi la bilaabayo waxay yidhahdeen anagu kuma jiro siyaasadda kuma jirno anagu waxbaa dadkaan waxbarnaay siyaasadda kuma jirno yidhahdeen marka haddii laynaga baray siyaasadda agelina aniga waxaa leeyahay siyaasadda galaan leeyahay ka qayb qaata ummadda wax la qabsada dadka wax la qabsada ummadda la noolaada change sameeya dhalinyaro ahaan ku sameeya change laakiin qolo ahaan ku sameeya qolo ahaan waxba ku keeni maysaan idinkoo awdala oo wada jiro oo halkaa fadhiya shalay go-aan baad gaadheen waxaad tidhahdeen saami qaybsi power shayla la sameeyo waxba lama qaban karo awood baad lahaydeen laakiin awooddiini waa la baabiyey de maxaa baabiyey lama rabo dee cid hadli karta lama rabo waxaa la rabaa in dadka la furfuro dadku inay saa ahaadaan systemka ku shaqeeyaan haysidaa ku jiraan baa la rabaa marka waan idin salaamay mala joogtaan baa barnaamij maanta soo galay maanta khayrtana salaamo maxaan ku dhahaa ula sheegay inayna meeshoodii joogin ay ku nool yihiin wrong place bay joogaan wrong place laakiin keep trying waa taraagaran kartaan dal cidi diidi kartaan ma jirto waa taraagaran kartaan laakiin saas idinki baa siyo maxsuulka siyo wuxuu maqtar baa wuxuu qofka aqoonta leh ee imika beeshiis kuma xidhna uu ka go'an yahay waayo aqoonta barasa inuu qofku beeli waxba u taray aqoon damiirka farayana beesh waxba ku taray laakiin aqoontu wax ku tarasa iyo oo ku meel mari karto laakiin mustamiciga wax u dhisay u samaysan yahayba in nin xun la doorto marka de nin xun hadduu soo baxo yaa mataqaana kii joogi waa shaaha haddaad iska niyeysato inaad kofee kusoo baxo kuma soo baxayo kii hore kusoo baxaya marka waa staan ba la isku meereysanaya ila meereysan weyaan Soomaaliya waa iska meereysato waanadna ogaataan
inaan waxani wax jira inaan ahayn horta taal ogaada wax jira waxani maaha ha ku xisaabtamina Soomaaliya la ixtiraafayo laakiin inta hadda imika wixii jira lagu shaqeeyo businesska socda waa dhex gali kartaa dad ka shaqeynaysa dad wax qabanaysa bedelasan qaybna la galo marka waan idin salaamay meel joogtaanba halkani waa Galbeed TV iyo xaruntiisii magaalada dalka Canada waxaan leenahay khiyaarta meel joogtaanba khayr iyo barako inta ku kulmi doono barnaamijkan oo kala waa aniga Umar Ismaaciil Maxamed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo iyo amaana Allah